السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa maalinimo isniin ah waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa ka mid noqon doona Iiraan oo laga baqayo inay xirto waqtiyada nagu soo aadan marin biyoodka Baabul Mandab xaaladu waa sidee wararkii ugu dambeeyaan idin hayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi oo isaguna war soo saaray Hezbollah oo faahfaahin ka bixisay dagaalka qaraar ee u dhaxeeya iyaga iyo ciidamada Israa'iil saacadihii la soo dhaafay wixii ay qararamsadeen iyo Israa'iil oo wacad ku martay meel kasta oo ka mid ah Lubnaan inay weerari doonto wararkaas ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena labaad inta aan ku jirnana wixii barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan oo la sheegayo in laga baqayo inay xirto marin biyoodka Baabul Mandab Baabul Mandab waa naqaanaa dhanka Yemen dhankan Soomaaliya soo xiga dhulkan waa Baabul Mandab maxaa loo xirayaa Mareykanku waxay yiraahdeen Iiraan ay weerareen maad iyagoo dhahaya waa weerar difaac Iiraan waxay ku jawaabtay saldhigyadiisa Mareykanka ee Kuwait inay weerarto taliska ciidanka Mareykanka ee leeyahay CENTCOM ayaa goordhow war soo saaray waxay yiraahdeen laba gantaal ayay nagu soo riday Iiraan oo saldhig Mareykanku ku leeyahay Kuwait laakiin waxay ku sheegeen warbixintooda inay labadaas gantaal ay ka hortageen waxa dhahaya taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka way saakay Kuwait waxay leedahay annaga soo ridnay gantaalaha Iiraan ka yimid laakiin Mareykanku maxay leeyihiin laba gantaal ahayn annaga soo ridnay Iiraan maxay leedahay wax la soo riday male wixii way adeegteen sheekadaas marka halkaas ka qasantahay marka warar kala duwan soo baxaya in Mareykanka uu adkaynayo cunaqabatayntii awal dekadaha ahayd hadda bangiyada cid kasto la macaamilaysa shirkadaha wax kasto ku soo daray oo macnaha waataan maalin hore ka hadlaynay lacag $1 milyan in maartay la siinayo qofkii keena xogo ku saabsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay hawsha marka qabanayaan sheekadaas marka waxay keentay carada Iiraan aaday uga carootay hadda waxa laga baqayaa Iiraan waxay leedahay lucbadii ama ciyaartii waa bedelnay haddaan la eedin wala arki doonaa Iiraan marka hadalkaas waxa loo fasiranayaa inay u socoto oo saansaan laga dareemayo dhanka Baabul Mandab xuutiga jooga oo isagu wali wax dagaal galin oo maalmahan oo dhan isdiyaarinay Hezbollah kaliya dagaal ku jirta iyo halkan Iiraan oo xabad joojina xuutiga wuxuu dhawaaday male xuutiga marka iyo Iiraan oo iskaashanay Iiraan waxay samaysatay doomo dheereeya oo 700 oo kiiloomitir maraakiibta ku dili kara doomahaas iyo waxa soo dhan badda in lagu yaaciyo kuwa Mareykanka sheeko marka la yaab leh ayaa soo socota la leeyahay hadii Mareykanka waxa uu wado uu sii wado oo fiirsada haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin qoray wuxuu leeyahay hanjabaada Iiraan ayaa imaanaya oo ku saabsan dhanka Baabul Mandab in marka ay xiisadu ku fidi doonto waliba arintan waxa soo dadajinaya xiisada Israa'iil ay ka wado dagaalada Lubnaan arintan kalena Lubnaan hal joojiye leedahay Iiraan haddii kale wax badan halaabi doona Hezbollah weerarkan ballaaran ee lagu qaaday dawlad maaha waa jabhad yar waa awlaadeedii hal joojiyo marka waxyaabaha Baabul Mandab soo dadajinaya inuu xirme ka mid tahay oo xuutiga waa loo baaqaya xuutiga hore ka soo galaya dagaal marka sheekadu halka way dhanaan tahay war hadda soo dhacay isaguna wuxuu leeyahay goordhow markaan barnaamijka diyaarinaya aan helay Iiraan inay gabi ahaanba joojisay risaalooyinkii ay isweydaarsanayeen Mareykanka
macnaha fariimay alisweydaarsanayay maalmahan oo dhexdhexaadayaashu way joojiyeen maanta waxay yidhahdeen arrinta lubnaan waa in wax laga qabta waa inay joojisaa israa'iil lubnaan haddaan la joojin dhibaataa dhacaysa waa tii barnaamijkii hore aan koobaad dadkii daawaday aan kusoo qaadanay ciidamada iiraan inay war soo saareen ay yidhaahdeen ma la aqbali karo israa'iil waxay ka wado lubnaan marka arrinka waa soo karayaa marka sheekadu halkaasay marka joogtaa dhanka kale marka wasiirka arrimaha dibadda ayaa isaguna war soo saaray iiraan ninka la yidhaahdo cabbaas caraaqji haddaba cabbaas caraaqji warbixintiisa waxa uu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas caraaqji ayaa sheegay in maraykanka iyo israa'iil ay iyagu mudan doonaan wixii ka dhasha ama cawaaqibka ka dhasha xadgudubka ay ku hayaan xabad joojintii ka dhexaysay haddaba warbixintan wuxuu ku daabacay boggiisa la yidhaahdo x maantoo isniina wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wararka uu sheegay iyo amarada uu bixiyay in weeraro cirkaa lagu qaado magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan inay keenayso dhibaato oo markaa wixii cawaaqiba arrinkaa ka dhasha ay iyaga dusha u ridan doonaan oo iiraan marnaba aanay aqbali doonin wuxuu yidhi wixii cawaaqiba oo ka dhasha sheekadan xabad joojinta lagu xadgudbayo maanta dhan adikaa ka mas-uula marka sheekadu marka laysku soo duubo waxaa muuqanaysa in xaalku uusan wanaagsanayn israa'iil waxay rabtaa socdaa meeshan inay waxay rabto weerarto maraykanka iyo iiraan ay sidaa ku hayso la isweeraro la kala tago xabad joojinaa la ilaalinaa la yidhaahdo iiraan marka geemka iyaduna way ballaarinaysaa waxay xeraysaa baabal mandab sheekada xaggaa loo guuraa inta iyo xagga haddii la xero maxaa yaala carabi waa ku dayso waayo marka sheekada waalidaa socota xaalku halkaasuu maraya dhanka kale waxaan u gudbaynaa lubnaan xisbullaahi iyo israa'iil dagaal aada u culus ayaa ka dhex socda saacadihii lasoo dhaafay marka xisbullaahi waxay soo saareen warbixintii ugu horreysay dagaalkii maanta socday wixii ay sameeyeen haddaba warbixintan qayb ka mid ah oo aljaziira ay heshay waxay leeyihiin xisbullaahi waxay tiri waxaanu bartilmaameedsanay goobo ay ku kulansanayeen ciidamada gumaystaha waxay sheegeen xisbullah waxaanu duqaynay innagoo isticmaalana gantaalo markii labaad kulan meel ay ku kulansanaayeen ciidanka israa'iiliyiinta deegaankii shalay ay yidhaahdeen waa qabsanay ee qalcadda la yidhaahdo al-shaqiif ee koonfurta lubnaan waxay sidoo kale xisbullah sheegeen inay bartilmaameedsadeen iyagoo gantaala isticmaalaya goob kale oo ay ciidanka israa'iiliyiinta ay ku sugnaayeen deegaanka la yidhaahdo al-qandarah oo ku yaala koonfurta lubnaan waxay sidoo kale sheegeen in meel kale oo askarta ciidanka israa'iiliyiinta ay ku sugnaayeen ay ku weerareen deegaanka la yidhaahdo diin oo ku taalla dhanka koonfurta iyagoo isticmaalaya gantaalo waxay sidoo kale sheegeen inay weerareen oo iyagoo isticmaalaya diyaaradda la yidhaahdo abaabiil ee nuuca droniska isqarxiyo ah goobo ay ku dhow xuduudda waxay sidoo kale sheegeen meel talisa isgaarsiin ay lahaayeen ciidamadu inay halkaa diyaaraduhu ku baabi'iyeen waaye riboorkaas ama warbixintaas waxa waaye xisbullah wixii maanta dhacay oo ay sameeyeen ayay maaragtay soo saareen marka waxaa lagu leeyahay waxaasu inay wax ka jiraan oo run badankood yihiin waxaa ku garanaysaa israa'iil waa la kululeeyay waray soo saartay marka israa'iil goordhow waxay leedahay meel kasta oo lubnaan aan weerarayna oo meel kasta maxaa ugeeya xisbullah ma meel kasta oo lubnaanay joogtaa maya waa la kululeeyay waxaan la sheegaa diyaarad daroona gantaal meel walbaa jugta lagu hayaa haddaba markaan tusoo warka ay israa'iiliyiintu iyaguna soo saareen ciidanka israa'iil oo goordhow war soo saaray ayaa waxay sheegayaan inay yidhaahdeen waxaanu sii wadi doonaa weerarada dhammaan meel kasta oo lubnaan ka tirsan afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa sheegay waxaanu sii wadi doonaa weerarka aynu ku hayno lubnaan meel kasta oo ka mid ah xataa haddii ay tahay magaalada bayruud dhanka koonfureed halkaasoo markaa aynu weerari doonno
marka waxay yidhahdeen meel kasta oo lubnaan waa weerarayna macnaheeda maxaa waaye meel naga xilma male meel kasta aan weeraraynaa lubnaan iyo maaragtay faransiiskii maanta wuxuu geynayaa golaha ammaanka isaguna arrinkaanuu geynayaa wax ka soo baxayana male meeshaasaa la leeyahy wuu isla goynayaa faransiiska wuxuu riwaayad u jilayaa waddankan carabta oo waa idin gumaysan jiray anaa idinka dhicinaya iiraan warka ay soo saartay maanta wuu ku jiray waxaa ka dhicin karta male dheen lubnaan wax ay kaa maqlayso israa'iil male dadkaa ha lu goynina dheen faransiis meel iska fadhiiso waxaa haysa male nimankaan annagaa dadka ka ashanaynay leeyihin nimanka iraaniya taliban imtixaano waay haddaba marka wixii kaloo akhbaaraada oo soo dhacay ayaan eegi doonnaa xayeysiinta kadib kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeennii labaad maanta oo isniin aan idiin soo gudbinayno qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa wixii warar ee soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba goordhow war degdeg ah oo lagu daabacay telefishinka aljaziira oo soo xiganaya wariyaashooda lubnaan waxay yidhahdeen israa'iil diyaaradaheedu inay weerareen oo ay duqeeyeen goob cisbitaala oo dadka lagu daweynayay magaalo la yidhaahdo suwar oo ku taalla koonfurta lubnaan qaybtii baarkinka baabuurta la dhigayay ilaa meel kasta way wada gubanaysaa la leeyahy waa war cusub hadda ayay diyaaradaha israa'iil duqeeyeen waataan soo ka soo hadal meel kasta waa duqeynaynaa macnaheed maxaa cisbitaal ma daynayno iskuul ma daynayno waay ciddii nala hadli leedaa nala hadasho marka xaalkaasu marka farahu kasii baxayaa sheekadaasu marka lubnaan arrinteedu aaday u kulushahay nimankaanuna waxay leeyihiin meelaan iska saaraynaa xisbullahina waxay leedahay walla aadna meelna saarin marka dhulkeenna waa difaacanaynaa ay leeyihin inkastoo lubnaaniyiintu kala qaybsayen qaar dowladaana ay ku hayaan meel bayruud la yidhaahay fadhiyaan maalinka walba washa casharay dhigayaan mar kuwo wareersan waa kuwaas marka sheekadaasu marka halkaasay maraysa waxay warar ay soo kordhanaa waan idinla socodsiin doonaa laagaray oo sheergaray barnaamijka haddii alla idmo barnaamijyo kale aan idiin soo wadaa